shantii sane la dhaafi waxyeeladii hadirta deegaanada Soomaalida ee Tolonto fari korna waliba dhulka keymo gobobka haynagadana saarnama deegaan ee kuleel badan dhibaatooyinka muuqday waliba ku mid ah abaarta oo sii daba dheerad ay dhulka Soomaalida iyo roob la'aanta teegan kaasoo caqabad nololeed ka nagatay dadkii dunyada isla markaana sababtay in dad badan iyo aqoonladooda ku barakacaan dartanka badan ku gobolada Jubbooyinka Geedi iyo Shabeellaha Hoose sidii sheegas diiwaangelin la sameeyay shantii sano dambeeyay wiilan may bato teegin inkastoo heerkeedii dardartahay yeen soona gooyoga dhirtiya awalku koonayay tan injegan oo la ku sameeyay jiray dhowlo iyo isticmaaleen qoysaska Soomaalida haabahaato xilligan gooynaayay eelin gooyahay waana arinta argagaxle ee gudaha dalka ku jirta geed abaareedka gudaha dalka ku baya kororahaya oo geedahaas qaarshil ka magacaabo quraca cadaadkiyo ka xarka waan yohaanasyo daabeen xoolo wan kirido xanuun galaafados nololeeyo rajada ka wajahan deegaanka isbadbaadiya kooban waliba ha korre dhalinyaro walbaratiyo muddooyinka dambe gudaha dalka kuwada ololo dhirbeerite taasoo ka suntan talaabo bogaadi mudan dadka ka xeel arrimo deegaanka sheegay in adagtayni Soomaaliya ku qabsato waxyeelada gaartay dhulka waliba taladii eta in bulshada ku wacyigeliyo waan sheegay muhiimadii dartanada deegaanka iyo noolaha ka dhaqan